sanad waliba waxaa Soomaalida lagu soo dhex tuuraa barnaamij loogu sheegayo in uu yahay mid ay ka dheefayaan dhaqaale aad u badan isla markaasina ay ku shaqaysan karaan iyagoo aan wax hawlaba qaban. Dooyinkii la soo dhaafay waxaa si weyn sare ugu kacay hadal haynta la xidhiidha barnaamij lagu magacaabo TradeBot, kaasi oo lagu sheegay in uu yahay mid uu qofku lacag dhiganayo uuna helayo faa'iido aad u badan oo maalin walba u soo dhacaysa. boqolaal qof oo Soomaali ah ayaa u riyaaqay barnaamijkan oo loogu sheegay in uu yahay mid hab qabow loogu helayo lacag aad u badan oo aan loo dhididin ama aan rafaad iyo tacabtoona loo marin. dadkii hawshani galay waxaa lagu qanciyey in ay maalin walba helayaan lacag faa'iido ah oo ka dhalanaysa raasamaalkii ay dhigteen iyada oo aan haba yaraate ee wax khasaare ah lala kulmaynin. malaayiin dollar ayaa la soo warinayaa in ay Soomaalidu dhigatay barnaamijkan aadka looga daba dhacay iyada oo sida oo kalena ay muddooyinkii u dambeysay socdeen oo olole dhalinta lagu qancinayo in ay ku soo biiraan madashan lacagta qabow lagu sheegay. balse saacadihii la soo dhaafay waxaa si weyn sare ugu kacay wararka tilmaamaya in gebi ahaanba hawada ka baxay barnaamijka TradeBot iyada oo ay halkaasina ku lumeen malaayiin dollar oo ay Soomaalidu ku maalgashatay. haddaba daawada waxaa suuragal ah in aad isweydiinayso waxa uu ahaa barnaamijkan lagu dhacay dadka dhaqaale doonka ahaa iyo weliba sababaha keenay. ugu horrayn barnaamijkan TradeBot waxa uu ahaa mid aan laga haysan war aad u badan sida ay xoguhuba tilmaamayaan. waxaa barnaamijkani la sameeyey bartamihii sannadkii hore ee 2023 iyada oo dadkana loogu sheegay in ay si fudud u maalgashan karaan isla markaasina ay ka heli karaan faa'iido aad u badan. sida ay wararku sheegayaan barnaamijkani ma laha wax tixraaca oo lagu aqoonsan karo kamanuu diiwaan gashanayn mareegaha internetka ee lagu kalsoon yahay ama xogtoodu sugan tahay. waxayna culimada tiknoolajiyadu isku raaceen in uu barnaamijkani ahaa mid loogu talagalay in dadka lagu dhaco. websayte-ka shirkaddan ayaa sidoo oo kale ku jiray liiska madow ee antifayraska caalamka iyada oo dadka kalena looga digaya halis amni oo la xidhiidha xisaabahooda iyo arrimahooda u gaarka ah. ugu dambayn waxaa baraha bulshada haysata qayladhaanta ka soo yeedhaysa dadkii lagu dhacay ee hawshani faraha la galay, kuwaasi oo aan hadda aqoon meeshii ay u raaci lahaayeen dhaqaalahoodii ay ku shubeen bartani aanay xogta ka haynin.